السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا waxaan sharxi doonaa sidee loo programmiyaa Subnet-ka. waa taleefankan waxaa weeye Hotwaf R6 waaye dabcan taleefanada isma lahan taleefankan aan habeynabo soo deji shaashada daatada waa ku furan tahay markay saas tahay way ka xiran tahay. okay daatada fur waa fur daatada waa hadda waa active. maxaa leeyahay rabaa waxaa leeyahay rabaa inaan register gareeyo. okay setting-ka soo deji taleefanada qaar kor bay ku leeyihiin waa kay xagga ku leeyahay setting-ka gal waa gashay setting-ka more option ujeedina malaya more option dalaq more option waa gashay maxaa leeyahay rabaa cellular networks ku dhufo. okay hormuud iyo Subnet waa Subnet ka rabnaa inta tag Subnet dooro data roaming active ka dhig horta. okay de maxaa ku dhiman kadib waxay maataa access point name simaad inta ku dhufo korkaas waxaa ku qortaa name meesha ku qoran tahay Subnet ku qoraysa hadda muhiimada xitaa inoo qadki ma g ku qori kartaa maxaa waaye wax le ku qor waa dad qaar ah laakiin Subnet iska niyeyst waxa rabtaa ku qori ha aan ku qoray mar labaad imaade ha kale aan ku qoray. okay aan dhe saddex dhibic taabo save ila fiirsh waa kay qadka waa joogaa. muhiimada ma aha in hal xabal ay ku taagnaatid magaca arabta meesha ku qori kartaa daarad magacaaga saddexaad ku qoro labada meel le magacyada isla haysi bis. okay Subnet aan ka dhigna markaanaga dad qaar ah Subnet-ka aaminsanay Subnet aan ka dhigaynaa Subnet inta ku qorayna meeshan kalena waxa ku qorayna Subnet isku dhamaad kadibna save adeesa wabillahi tawfiiqadka uu ku joogo waa kay labada falaal ku raadayso wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. waa diyaarintii habeentii DJ Honest Guy Abdul Mahdi Abdul Honest Guy sida iyo amaanada.